بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dhammaan ardayda aad iyo aad baa idin salaamaya waxaan jeclahay cashirkan inaan ku sharxo waxa la yiraahdo robotics and intelligent agents oo ah markaan ka hadlayno AI-ga ama artificial intelligence-ga waxaa jira yani mechanisms kala duwan oo ka hoos baxaya AI-ga inta badan AI dadku waxay u moodaan keliya robotka iyo mashiinadan oo kaleeto robotyadan oo kale u moodayaan laakiin AI-ga waxaa soo hoosgelaya waxa la yiraahdo NLP sida ChatGPT-gi iyo waxyaabahaas oo dhan waxaa soo hoosgelaya waxyaabaha image-ka iyo la xiriira image-yada iyo sawirada iyo waxyaabaha la xiriira iyo any device oo ama any agent ama any device kaasoo u dhaqmi kara sidii system caqli badan ayaa waxaa ugu yeeri karnaa AI marka robotka keliya robotyadan oo kale keliya mooyaane deviceyadan caadiga ah oo wax fahmi kara iyaga ruuxadooda waxaan ugu yeeri karnaa intelligent agent marka aan ka hadlayno farqiga u dhexeeya robotka iyo intelligent agent halkan ayaan ku kala ogaanaynaa horta robotku waa maxay waa field ama area aad u ballaaran oo ay soo hoosgelayaan waxyaabo badan hadday noqon lahayd waxyaabaha designka oo wax lagu design gareeyo hadday noqon lahayd constructionska iyo dhismayaasha hadday noqon lahayd oo robotyada waxaanu isticmaalnaa inaan wax ku design garayno waxaanu isticmaalnaa in aan constructionska iyo dadkan maaragtay civilka guryaha dhisa ruuxadooda wuu caawinayaa oo robotyo dhismayaasha ka qayb qaadanaya ayaa jira waxyaabaha operationska oo la qabanayo tusaale ahaan caafimaadka oo kale markaan ka hadlayno waxaa jira robotyo qayb ka ah surgeryga oo kaleeto qalimada iyo waxyaabaha la midka ah iyo sidoo kaleeto warshadaha waaweyn oo baabuurta iyo waxyaabaha manufacturingka iyaga ruuxadooda qayb ayay ka yihiin robotyada marka meelo badan baanu isticmaalnaa marka robotku waa interdisciplinary micnihii any area ayuu dhex gelayaa ama any area ayaanu isticmaali karnaa intelligent agentigu ama deviceyadan intelligentiga ah iyagu waa maxay waa are autonomous entities that perceive their environment and take actions to achieve goals waa systemyo ama nidaamyo yani ka falcelinaya environmentigaas iyo bey'adaas ay joogaan isla markaasna samaynaya wixii ficil ah ama actions si ay uga guulgaaraan ujeedada markaas marka keliya robotka ma ahan any device oo ah intelligent kaasoo environmentiga ama areada uu joogo ficil samayn kara isla markaasna ka guulgaari kara yani waxyaabaha uu loo design garay ama loo diyaariyey ayaan ugu yeeri karnaa intelligent agent marka waxaan tusaale usoo qaadan karnaa dhanka robotka oo kaleeto defaceka noocaan ah oo inta badan halkan hadda sawirkan waxaa idinka muuqdaa waa carbetkan waxaa clean garaynaya waa robotkan oo la yirahdo robotic vacuum cleaner waa robot kuu clean garaynaya carbetka iyo guriga kuu clean garaynaya wax walba markuu arko obstacle wuu ka hor istaagayaa tusaale ahaan halkan fadhigan oo kale markuu gaaro wuu ka istaagayaa dusha ka mari mayo ilaa intaasoo dhan buu si fiican u nadiifinaa intii hadba loogu talagalay si wanaagsanna uu u clean garaynayaa isaga oo iskiis isu wadaya marka defaceka noocan oo kale ayaa waxa la dhihi karaa robotic vacuum cleaner inta badanna waxaanu isticmaalnaa guryaha iyo xafiisyada marka muhiimadda ay robotku leeyahay waa maxay robotku wuxuu leeyahay muhiimado kala duwan
waxaan u isticmaalnaa manufacturingka, healthcare-ka iyo agriculture-ka intaba waa u isticmaalnaa. Hadday noqon lahayd caafimaadka iyo agriculture-ka iyo wixii lamid ah. Marka industrial robotics inta badan waxaa loo isticmaalaa automobile assembly lines si loogu kordhiyo efficiency-ga iyo precision-ka wax soo saarka warshadaha ama manufacturing process-ka. Marka muhiimadaas ayay leedahay robotka. Inta badan kambaniyada ama organizationada waaweyn oo soo saara baabuurta iyo wixii lamid ah qayb waxa ka ah role weyn waxa ka ciyaara robotyada oo industrial robotics. Baabuurtan baabuurku markuu halkaas soo marayo robotyadan halkan yaala shaqo gooniya qabanayaan. Markuu soo dhaafo gaari robot kale u imaanaya shaqo kale u qabanaya, robot kale u imaanaya shaqo kale u qabanaya. That means robotkan halkan jooga waxaa loo train gareeyay in uu shaqada markuu gaarigu xaggaa soo gaaro uu specific task ama shaqo gooniya u qabto. Tusaale ahaan leyrka gaariga oo kale inuu ku xiro. Marka robotka ka horeeya shaqadaa ma qabanayo, kan ka sii horeeyana ma qabanayo. Mid walba wuxuu soo qabanayaa particular task, shaqo u gooniyu soo qabanaya. Mid ku khaldamaya haba yaraatee ma jirto. Marka robotyadan faa'iidaday leeyihiin waa maxay? Waxay dedejinayaan activitieskii iyo operationkii warshadaha iyo wax soo saarkii. Isla markaasna waxay kor u qaadayaan wax soo saarkii kor u qaadayaan. Waxayna keliya u baahan yihiin waa maxay? Waa maintenance iyo 24 hour-na way shaqayn karaan. Qofka bini'aadanka halkan jooga waxa laga yaabaa inuu mistake sameeyo waxyaabaha uu qabanayo, laakiin robotku mistake uu samayn karaa hadduusan ciladii ku imaan way yartahay. Probability-ga mistake uu samayn karaa aad u yartahay. Marka faa'iidadaas ayay leedahay robotka. Waxaa inoo soo haray applicationskan aan u isticmaalno robotyada. Markaan ka hadlayno real world applications of robotics waxaa ka mid ah industrial automations, medical robotics, yani waxaa jira applicationo ama nidaamyo kala duwan oo u isticmaalno robotka. Ma dhihi karno robotka keliya waxaan u isticmaalnaa waxbarashada ama dhismayaasha. Robotyada waxaan u isticmaali karnaa disciplines kala duwan ama area kala duwan. Hadday noqon lahayd industrial automations dhanka warshadaha, hadday noqon lahayd caafimaadka oo tusaale ahaan surgical robots. Hadda robotkan gabadhan waxa laga yaabaa in operation lagu sameynayo. Marka ninkana uu yahay dhakhtarkii oo kaleeto. Marka dhakhtarka si uu operation u sameeyo waxaa caawinaya robotkana caawinaya. Robotkan marka muxuu ka caawinayaa wixii qalliinka iyo operationka qaabka loo qabanayo waxyaaba noocaas ah. Marka sidoo kaleeto waxaan u isticmaali karnaa agricultural robotics. Robotyada waxaan u isticmaali karnaa dhanka beeraha iyo wax soo saarka sida autonomous tractors, mashiinadan cagaf-cagafta ah oo si automatic ah isu wadaya. Marka hadda qalabkan caafimaad waxa loogu yeeraa PA Fensai Surgical System. Systemkan ayaa which assist surgeons with minimally invasive surgeries is widely used in hospitals worldwide. Inta badan dhakhaatiirta wuxuu ka caawiyaa qalliimada wuu ka caawiyaa adduunka oo dhanna waa laga heli karaa iyo caalamka oo dhan. Marka waa qalab robot awey. Marka xagga waxaan ka fahmi karnaa muhiimadda waxa weeye in robotka loo isticmaalo different applications. Marka waxaa isweydiin mudan applicationadan aan hadda isticmaalno robotyadu wax hadda bilaabmayba mise wax weligood yani soo jiray. Horta wax walba bilowgay leeyihiin, laakiin waqti walba robotku step buu soo marayay iyo nidaam buu soo marayay ilaa la gaaray yani heer waxaa joogtay uu bini'aadamku uu ku fakarayay ma jiri karaa mashiin ama nidaam u fakeri kara u dhaqmi kara sidii bini'aadanka. Maantana qayb ayay waxay ka yihiin nolosheenna.
inkastoo aan weli sidii la rabay aan laga guul gaarin oo wax badan ay dhiman yihiin. Marka heerar kala duwan ayaa la soo joogay, mar walbana waxbaa la soo qabanayay. Sida tusaale ahaan robotyadii 30 sano ama 40 sano ka hor jiray, waxaa laga yaabaa inaysan too smart ahayn oo mashiinno caqli badan aysan ahayn, laakiin mashiinada hadda aan haysano ay yihiin kuwa smart ah, walow walow ay yihiin waxyaabahan robotyada aan hadda isticmaalno ama jooga ama ilaa iminka la sameeyey inay yihiin yani kuwa general AI ah, aysan ahayn kuwa maaragtay narrow AI. Narrow AI markii la gaaro waxay ahaan doonaan robotyo aad iyo aad u caqli badan, kasii caqli badan kuwa hadda jooga. Marka tusaale waxaan rabnaa marka inaan usoo qaadano robotkan, the first industrial robot Unimate. Robotkan waxaa la dhahaa Unimate, waxaa la soo saaray sanadkii 1960. Marka waxyaabaha loo isticmaali jirayna waxaa ka mid ahaa welding iyo painting, in wax lagu painting gareeyo, welding lagu sameeyo, waxyaabahaasaa loo isticmaali jiray. Haddaanan khaldanayn waxa waaye kalaraynta iyo waxyaabahan maaragtay weldiga la yidhahdo weldiga. Weldi Soomaali ahaan waxay noqonaysa ma garanayo, laakiin waxyaabahaasaa loo isticmaali jiray. Marka aan isla fiirino robot muxuu ka kooban yahay, very important question way, sababtoo ah macmalkan bini aadanka wey, ama tusaale ahaan robotkan oo kale waxaa la yidhaahdaa humanoid robot baa la yidhaahdaa. Wuxuu ka samaysan yahay inta badan robotyadu waxay ka samaysan yihiin waxyaabahan sensorieska ah, actuatorieska iyo control system. Marka sensorieska waa maxay? Waa yani qofka bini aadanka wuxuu leeyahay dareemayaal wax ku dareemo, temperature ha noqoto, roob ha noqoto, everything marka aad yani wax dareento jirka uu ka celinayo. Marka sensoriesku way kala duwan yihiin. Sensorieska waxaa ka mid noqon karaa cameras iyo lidar. Tusaale ahaan sensorka qaabka uu shaqeeyo waxa waaye sensoriesku way kala duwanaan karaan. Sensor markaan leenahay wuxuu noqon karaa mid temperatureka kuu sheegaya, mid kuu sheegaya noiseka, wixii buuqa oo jira, mid kuu sheegaya water level, biyaha iyo waxyaabaha. Marka waa sensor. Marka sensorka wuxuu shaqeeyaa, tusaale ahaan kan sensorkan oo kale waxa laga yaabaa distancega markuu robotkan uu soconayo uu movement samaynayo. Markii tusaale ahaan robotku xagga marayo, wuxuu arkay gaari hortaagan buu arkay, tusaale ahaan let's say gaari buu arkay, okay, taayiradii waxaan ula jeedaa raalli ahaada, gaari buu arkay. Marka wuxuu samaynayaa uu ka istaagayaa. Maxaa marka see wuxuu ogaanayaa waxa ku jira sensorkana ku jira. Sensorkana marka wuxuu u sheegayaa in uu jiro obstacle, wax hortaagan, marka wuu ka istaagayaa. Waxyaabahan inuu ka istaago waxa keenaya waa maxay? Waa sensorkana keenaya. Waxaa laga yaabaa sidoo kaleeto inuu ama camera ay ugu rakiban tahay, uu arkayo waxyaabaha ku soo socda, waxyaabaha maaragtay ku soo foodle, ama waxa laga yaabaa inay cameraba ku rakiban tahay isla markaasna si indirectly ama si directly loo maamulayo. Sidoo kaleeto robotka waxyaabaha ama components uu ka kooban yahay waxaa kamid ah actuators, oo sida waxaa kamid ah motors oo runtii ah waxyaabaha u sahlaya in uu movement sameeyo ama uu sameeyo maaragtay joint movement, inuu hadda
gacantiisa dhaqaajiyo, warwareejiyo, iskala wareejiyo, kaco, istaago, movement waxyaabaha samaynaya bay ka mid tahay. Waa device kale oo isaguna ka mid ah ama component ka mid ah componentska uu ka kooban yahay robotyada. Sidoo kaleeto wuxuu ka kooban yahay control systems, yacni nidaamyo wax ilaalinaya. Sababtoo ah haddii uusan control system lahayn, runtii robotku useless ayuu noqon lahaa, yacni faa'iido ma yeesheen. Marka all these kinds of components waxay qayb ka yihiin robotka.